السلام عليكم صاحبيال كسو دواada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kale muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo joogtayna waxaan ku leeyahay saaxiib soo dhaw mar labaad saaxiibayaal muuqaalkani waa uu ka duwan yahay muuqaaladii hore dabcan sidii aan Telegram-kayga iyo YouTube-kayga aan soo dhigay alaabihii Alibaba aan ka keenay ama store-kii aan furay aan idin la wadaagayay iyo sawiradii aan soo dhigay Telegram-ka waxa aad igu badatay su'aal marka la xiriirta ganacsigan ama B2B ama marka business to business ka hadda aan ku jiro ama aan bilaabay aan already marka natiijo aan ka hayo sidoo kale tan already dad aan wakiishay su'aashaas oo ah in maanta adigoo hool haya hool aanan heenin fursad haysta jaanis haysta lacag yar aad ku bilaawdo marka aad heli karto in marka aadan aqoon wadooyinkii iyo wixii qaabkii aan maray ayaa marka su'aalo badan la weydiiyay su'aalahaas marka waxay u badnaayeen in marka koorso nooga diyaar leedahay walow ana aska mashquul badanahay laakiin sidii aad saaka hadda waan diyaariyay oo waan soo dhameeyay haddii aad doonayso Alibaba koorso qusaysa kasoo bilaaw alaabtii ilaa iyo guriga ay ka imaanayso wado walba la maray haddii aad doonayso koorso ayaan ka diyaariyay numberkeena already waa taqaanay WhatsApp linkiga description ku saaran yahay hadaba Alibaba alaab ma laga keensan karaa ha aan kula alaab ka keensaday waxaan meesha saarno arkaysa dhan waxa doonta sameyn kartaa haddii aan ku dhamaaminaysa maanta $20 ashay laga siiyaa dhaga doonta masaaca doonta $30 barfuuna doonta $30 shay baa doonta waxa la $25 wax waxa doonta 20 bay ka kacayaan ma harata joog haddaan ku dhaca waran waxa soo dhan 20 laga siinayo $2 $3 $4 ay xaafadada ku imaanayaan kasoo bilaw alaabta lacagteedii shipmentigii cargo soo qaaday adiga markaa jirnaysa mootada ama taksiga raaciisay haddana ka soo raaciisay waxa soo dhan isku dar shayga waxa laga yaabaa $4 $5 inuu noqdo walaal saaxiibayaal ganacsigan lacagta aqli galena ku jirto business to business kan alaaba keensatay uma baahnid guriga dhiganaysa uma baahnid inaad kari gasho ama dukaan aad iibiso adduunka step step way horumar ka bilaabaysa qaybta kor hoos ka bilaabaysa guriga iska dhiganaysa koorsada waxa ku jiro meeshii aad ku xayisiileed hadaa keenta alaabta waa free koorsada ku dhex jirta waxa soo dhan koorsada ka helaysa hadaba dabcan tusaale hadaa ku siiyo ana alaabo laba Alibaba leh alaabo kala duwan ka keensada kan oo kale waxa keenay ka soo qabato sagaal alaab ina keena malaha kan ka keenay waa midkii hore aan tijaabada aan ku bilaabay haddana mid ii qaas suurkii ku magaca marka aan isticmaala dabcan kumbale dootana hadda tagna sagaal alaab ku jirto hadda alaabtan fiir gibiga $84 bari ku fadhidaa lacag $100 ka badan dhalaysa alaabtan arkayso $54 ku fadhidaa lacag waxay dhalaysaa $500 ku dhow tan $24 ku fadhidaa $100 way dhaafaysaa faa'iidadeeda waxyaalahan dhan aqliga diida saaxiibayaal macnaha aniga Soomaali aan ahay adoo kale aan ahay luqadda ku hadla wadanka jooga wax ma ku dhaami isku mid aan ahay waxa ana asmi waa sameyn kartaa adoo ana computer mi bilaadina adoo kale ahay haddii fursad aad ku banaan tahay hadaa ganacsada aad tahay haddii alaab inta lacag badan aad ku soo qaado waxyar ka raayso hadaba jaaniska waa jaaniska aad ku taajiri leed sababtoo ah alaabtii $10 $9 inta ku soo gadaad wax ka tiiraadinaysay $4 $5 ku maanaysa kadib waxa doonta gadanaysa jooska askare ganacsigan haddii xataa lacag aadan heen wax fiin $30 $50 ku bilaabi kartaa waa ganacsiga kaliya inta lacag deensato lacagtiisa aad la karto waay xataa hadaa gacanta ku heen waaya inta soo deensato $50 aad ku bilaawdo kontonkaas ka gudi kartaa saa faa'iido kaaga soo haraysa saaxiibayaal haddaan la isku ciyaareen xaqiiqada marka ka hadalno Alibaba waa platformka ugu wanaagsan ee waqti xaadirkan lacag la taaba kara ka sameyn karto saaxiibayaal waxaan dhan waa alaabo midka aad doonto iibsanaysa midka aad aragto dananaysa hada dhagahan wadanka miyaalin waa keeni kartaa ka faa'iido kartaa hada miyaaradan fiiri hada miyaaradan waa plastic waay wax jaba ma ahan sharoota ka fiiqaysa dirbiga ku dhigtinaysa $1 wax ka yar joogta intan $4 $5 si gidi kartaa waxa arkayso meesha ku xusan fanaanadahan fiiri $1 waay $7 $10 laga yaabaa marka waxyaalahan dhan waa waxyaalo aad ku banaan aad kansan karto aad ka ganacsan karto hadaba waxaan ku diyaariyay Somali Tuulan wuxuu ku diyaarisay
koorso dhammaystiran hal video ka kooban wax walba aan kugu dhex sharaxnay wax walba aan kugu dhex sheegnay wixii talo ah wixii tusaale ah tilaabooyinka qaadaysa waxyaalaha sameynaysa waxaas oo dhammeysha kugu dhex sheegnay haddaba haddii aad doonayso 2023 gabagaba ah inaad fadhiga ka kacdo ganacsi la taaban karo lacag la taaban karo inaad sameyso oo aad shaqaysato alaab aad keensato waxaa laga yaabaa degmada dhan aad degantahay ama gobolka dhan aad degantahay inaad horseeda u noqoto waxaan aysan fahansanin barnaamijkan aysan aqoon qof kaliya markaa ugu faa'iido badan aan noqoto alaabo aan la aqoon xataa qaariga weligood arkin inaad keenta laga yaabaa alaabsan weligood arkin kadibna aad kasii iibiso yaanan idinku daalin hadal waxaa rajeynaya janaalka subscribe inoo saartay muuqaalka inoo la gareys asabod gareese Alibaba is the best platform wallahi waan tijaabiyey alaabo far badan oo kala nooc ah ka keenay qaarkiin idinka iibiyey qaar ka soo wareedin aragteen dhalinyaro fara badan ay soo xiriira ganacsadayaal ah qaar marka hadda inay bilaabaan rabaan waxaasoo dhan oo ridda muuqaalka markay daawadaan waxay rajeynayaan is diiwaan geli doonaan koorsada ay iibi doonaan isla markiina markaa oo hore ay ka bilaabi doonaan isla waqtigaas ay fiirsadaan muuqaalka hore ay ka bilaabi doonaan ficilka wixii caawinaadana waa u dheer tahay haddii wax ka fahmayaan waa la caawinaa meeshay ku xayeysiin lahayn waa la tusay iyadana waa free lacag la-aan waaye waxaasoo dhan haddaa rabta inaad ka faa'iidaysato Somali Tutorial inay ku caawiso diyaar u tahay haddaba ka faa'iidayso isdiiwaangeli koorsada iibso wixii tale iyo tusaalaana comment inoo wareeg insha Allah waxaan idin rajeynayaa guul wacan waxaan rajeynayaa inaad sameysaan ganacsi la taaban karo waxaa laga yaabaa meesha jirtana horseeda ama hogaamiye wanaagsan ka noqoto waayo haddii dadka jooga aysan fahansanin magaalada inta alaab ka soo gadaan ay sii gadaan haddaba alaab ka qurux badan kana raqiisan ay keeni kartaa this is the best chance guys wa salaama